fanaanadii xaramka barakaysan ku soo xajiday haddana kutub xoorka noqotay ee tumashada tiyaatarada dib ugu laabatay qoftan qaawisay qaararkii qarsoonaa ee alle xarimay xabadkeedana taatuuga ku sharaxday ma aha Rihanna Fiti ama Selena Gomez waa fanaanada Xaliimo Gobaad oo xijaabkii xoortay timahana fayday toobadiina ka dul talaabsatay xidigtii hore uga garab ciyaartay weeraryahanka shumaca fankiisu dameeyay Axmed Saki tiyo ay qaab ciyaareed cajiiba jiibta iyo jaanta garoomada iskula heleen ayaa ka qulqushay kolkay qandaraas kooban qalinka ugu duugtay siyaasiga Samow wuxuu burburay markay ka baxday ballankii toobadkeenka fanka fasahaadkaana ku soo laabatay waxayna hadda beeca xorta ku joogtaa banaanada wadanka Sweden fanaanadan shaydaan sheeda kala socday ayaa kala diray iyadii nasrigii ay ku najaxday ee Sweden ku dhaafiyay mawjadihii munkarka ahaa una kala talaabiyay tiyaatarka ilaa iyo xaramka barakaysan waxay leedahay intii jeclayd iyo iska buloy waxaan daayay baan dib u bilaabay ee dareenka xad dhaafay xagaaga u jeeda xareedka waraabi iyo habeen kasto la ciido cajiib muu ahaado fadlan like saar muuqaalkan haddaad noo sheer garaysana waxaan goyn doonaa malaayiin mayl mahadsanid fanaanada Xaliimo Gobaad kolkii ay mikrofoonka tuurtay ee kutubka gacanta ku qaadatay Soomaalidu dhan ayaa marxabeeyay oo milyuumaad jeer ugu duceeyay inuu alle ka madoobeeyo fanka fasahaad kale waaga waxay u muuqatay inay cagta saartay tubta toosan kana toobad keentay dunuubta fanka xilliga waxay daa qaaday inay malaayiin mucaashaqiin faneeda uga fogaatay si ay alle ugu toobad keento waxayna ku soo cumraysatay xaramka barakaysan iyadoo asturtay jirkeeda si qurux badanna ugu labisan xijaabka islaamiga 24 saacadood ee la soo dhaafay waxa si baan loo hadal hayay muuqaal anshaxa iyo dhaqanka ka aradan kaasoo aan looga baran hablaha Soomaaliyeed ayaa la arki karay iyadoo qaawisay qaararkeedii qarsoona kuwaasoo ay taatu ku sharaxday waxaana loo fahmay inay dhaqan doorsoontay oo qaaday jidka fanaaniinta diinlaawayaasha ee reer galbeedka kuwaasoo dhaldhalaalka jirkooda fanka ku jooga ku nuursiga xubnahooda ilqabad kalena ku hela sunuud lacaga fanaanada Xaliimo Maxamed Axmed oo ku magac dheer Xaliimo Gobaad ayaa sanadii hore shaacisay inay isaga baxday guud ahaan fanka oo ay muddo dheer ku soo jirtay waxaana la xasuustaa inay mar qura u soo shaac baxday sida dayax 15aad dadweynuhuna ay ka daba dhaceen heesaheeda qalbi taabadka badi dhalinyarada ayaa u riyaaqay qoobka ciyaarkeeda qaaska laafiyaha dhexjabiskeeda oo lagu daray cod dhiguhu u macaansanayaan sida malabka milyuumaadka mucaashaqiinta faneeda ayaana ka daba dhacay heesaheeda jaceylka u badan kolkaasoo ay heesaheeda laba qarxay la qaaday fanaanka Axmed Saki bulshada Soomaaliyeed oo badankeedu aysan fanka jeclayn ayaa kolkii fanaanadan ay xaramka booqatay waxay u rajeeyeen inuu alle soo hadeeyo balse dhagihii waansanaya waana qaata gabadhanina ma aysan noqon sidii ay dadka Soomaaliyeed la jeclaayeen oo wata mar kale aan arkayno iyadoo la timi dhaqanno ka baxsan anshaxa Soomaalida iska badaa fankii qudhiisa lagu muransanaaye fanaanada Xaliimo Gobaad ayaa qoraal ay ku shaacisay boggeeda Facebook sanadii hore waxay ku sheegtay inay si rasmi ah uga baxday fanka iyadoo taageerayaasheeda ka codsatay inay khayrka ku taageeraan uguna soo duceeyaan inaysan fanka dib ugu soo laaban Gobaad oo ka mid ah fanaaniinta ugu shacbiyada badan Soomaalida sida ka muuqata jaantuska muuqaaladeeda la soo geliyay YouTube oo dhammaantood malaayiin daawadayaal kor u dhaafay ayaa ku dhawaaqday inay go'aan ka qaadatay kolkii ay garoosatay ama aragtay in adduunku uu yahay maalmo kooban ayna xasuusatay xadiis laga wariyay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kaasoo ahaa haddii aad galabaysataan ha sugina in waagu idiin bariyo haddii aad subaxaysataanna ha sugina inaad galabaysataan waxayna qoraalkeedii xilliga ay daabacday ku tiri waxaan go'aansaday inaan iska joojiyo fanka taageerayaashayda sharafta badan waxaan idin rajeynayaa inaad khayrka igu taageertaan alle oo raalli iga noqda ayaa muhiim ii ah laakiin sanad kadib sheekadu waa halkeedii fanaanada Xaliimo Gobaadna tallaabooyin ayay dib uga qaaday tegidii xaramka iyo toobadkeenkii alle waxaan si alle uga rajeynaynaa inuu soo hanuuniyo oo khaatumadeeda khayr ugu khatimo bishaaro u gaara qurbo joogta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa qaata cayrta aan ku filayn ama kuwa mushaharkoodu uusan kaafin karin qoysaskooda kala jooga dalka hooyo iyo qurbaha mudanayaal iyo marwooyin tani waa fursad ganacsi oo ay idiin soo bandhigayso shirkadda caalamiga ee Forever Living taasoo laga leeyahay waddanka Mareykanka haddii aad tahay jeeb miskiin aan qurbaha haad ku hayn ama aad tahay taraagle tani waa fursaddii aad maalqabeenka ku noqon lahayd waxaana ka shaqaysan kartaan idinkoo jooga guryihiinna ama goobaha shaqada
kol haddaad rabto dhaqaale dheeri ah ama doonayso inaad noloshaada wax ka beddesho fadlan la xiriir manager Fawziya oo ah ganacsade guulaystay heshayna abaalmarino sarreeya muddadii ay ka mid ahayd Forever Living kalana xiriir WhatsApp number +1 20 64 38 36